Hay'adda Gareeda oo kaashanaysa hay'adda IRC ayaa maanta agab waxbarasho gaarsiisay iskuulka Cabdisalaan Ibraahim ee degmada Dinsoor. Agabkan oo ka kooban kuraasyo, miisas iyo qalab waxbarasho oo kale ayaa qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada degmada. Munaasabadda wareejinta agabka waxaa ka soo qayb galay maamulaha hay'adda Gareeda, guddoonka waxbarashada degmada Dinsoor iyo maamulaha iskuulka. Mas'uuliyiinta goobta ka hadashay ayaa sheegay in agabkani uu wax weyn ka tari doono bilicda fasalada iyo adeegyada waxbarasho ee ardayda. Maamulaha Gareeda ayaa xusay inay ka go'an tahay kor u qaadista adeegyada waxbarashada, halka guddoonka waxbarashada degmada uu ugu mahadceliyay labada hay'adood taageerada muuqata ee ay la garab taagan yihiin bulshada. Dr. Aday ninka oo antag ayaala suuqbusi runtii uskidias jaaliyad ma maqan jaaliyad badan oo reer Dinsoor ayana maqan lan wanaaga ay sharafta ay suuqbusi mile meelina Dr. hormar iyo natiijo fayl oo ilaahay ugu rajaashna unuun hay'adda Gareeda kastiira uu heeshni wasaq wareegasni wali tirada dhanta iyo wali xil wareejinta agtana xikamusan uu ka hadal Cabdisalaan Ibraahim marka meeba geeki fadaanaynin ku wareejin xafladun ku wareejin fadaane fasalada meel raayis kulaaso fasalada ayaa kolka bardaan imiisasyo oo sodon kuraas iyo sodon miisas ku jiraan iyo shan sabrood iyo ku wareejiyaan geek mashruuca oo BMZ oo IRC iyo hay'adda Gareeda isku kaaladaan wadanka Jarmalkana biyo mashruucaasi donorka marka maamulka geeka may fadaanay in siin wareejin guddoonka waxbarashada maamulaha inuu wareegdan sodon kuraas iyo sodon miis iyo shan sabrood oo isiin argahaytan insha taydiyo iyo nidaamka la suubi oo wal ilad ka jartoon argaasan meel raadin sheegaysan tan inuu bedelo raasan ila taydiyo lagu faday un ka tirgalnay hoob aan lahayna isku fiiriyaasan marka iidan ma santiin Gareeda waa xaqiiqtii waa mashaariic badan iyo degmadii sarkuwada khaasatan qaybta waxbarashada kaalan badan oo sanadkiiskati geemeeba on rugoognaa in la wareegna laba fasal kuraasyo dhameystiran iyo sabuuro oo ka badan labada fasal oo ka badan sabuuro ah iyo laba fasal oo kuraasyo ku soo dhameystiran iyo wareejinta on rugoogna majaaka maamulaha iskuulka iyo waalidiinta marka waa shay qaali ay waaye ardayda aan qiimadii maalmaha markii uu keenay arday oo dhulka fadhido on kooyni marka ardaydii geed dhulkii oo tiriidan uu ku dhakaysan uu ku sheeday kuraas uu ku fadhiisata marka insha Allah taala meebo oo iyadoo ka mahadsan mashruuca lanka saafulusi iyo hay'adda iyo كمبنا وصار صوب سيد ما اسم كلينا جزاكم الله ألف خير أنت سر شقايتي أنت أسكديب سكول كباه بدن أنقابي مشروعي كي كراسي كوي إن شاء الله تعالى هلني إنك بدن كرنا سين رجع إن ونعاودا إن شاء الله تعالى أفضل نقصيص كذا كراسي ميسيس أرضي باهوين أنقوا مدرسة عبدالسلام إبراهيم مربضا سنة بوغدا إن شاء الله هدنا سنة سيسان نوشيني هدي إلهي ذم بس رجعنا أنت إنك بدن إن شاء الله شكرا مربلات مرسيدهات سين محننا هيدا Gareeda madaxda iyo guddoonka waxbarashada dhamaantood si salaam insha Allah. Hashim Hassan Suudey, raadiyaha iyo telefishinka Koonfur Galbeed, degmada Dinsoor ee gobolka Bay.